mudanayaal maanta waa maalin taariikhi ah, waa maalin taariikh samaysmaysa aan goobjoog u nahay. waxaan maanta goobjoog u nahay 47 sano ka bacdi gole sharci dejin xilhayntiisa si buuxda u soo dhammaystay oo fadhiya xilkii ku wareejinaya gole cusub oo shacbigu soo doortay oo xilhayntiisii cusub qaadanayo. waxaa farxad weyn ah inaan maanta aan goobjoog u nahay munaasabadii xildhibaanada baarlamaanka tobnaad ee ay Soomaaliya yeelatay lagu dhaarinayo. waxaan si gaar ah u salaamayaa dhammaan xildhibaanada cusub ee la soo doortay. waxaana si gaar ah u salaamayaa xildhibaanada oo dib loo soo doortay. waa sharaf weyn ayay u tahay oo deegaan doorashooyinkooda ay ku soo sharfeen una soo garteen kuna soo maamuseen in ay u soo doortaan inay golaha kan ku matalaan codkooda. maantana laga bilaabo markii dhaartaas aanu marno dhammaantayna waxaana laga doonayaa inaan u dhaqanno sidii xildhibaan qarameed oo dhammaan shacbiga Soomaaliyeed ka mas'uul ah, codkoodii ku hadlaya dantooda guud iyo wanaagga guud ee dalka ka shaqaynaya. waa lagama maarmaan inaan yeelanno fiiro dheer oo lagu higsanayo shacbigeennu ku higsanayo arrimaha uu noo soo xilsaaray oo halka kan aan ku matalayno. dastuurka qaranka inaynu ku dhaqanno oo ay ka bilaabayso magacayga dhowrana dastuurka qaranka. ilaahay ha idinku waafaqo. guddiga wuxuu u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida iyo amisom. wuxuu kaloo u mahad celinayaa saaxiibada beesha caalamka oo nala garab taagnaa kaalmo farsamo iyo mid dhaqaale oo ay la'aanta suurtageli lahayn. waxaan hortiina ka caddaynayaa in golaha shacabka tiradii la doortay ee 250 ah ee sharciga ah oo ay ka maqan yihiin 11 xubnood ee guddigu madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadku ay ilaaleen in 63 ka mida ay yihiin haween oo dadaalkoodu ku yimid go'aankii iyo warmurtiyeedkii madasha iyo guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo arrintaas ka miro dhaliyey. boqolley ahaan markii aan xisaabinno tirada dumarka ee golaha shacabka maanta ku jiro oo 63 ah ee ka mida 250 la doortay waxay noqonayaan boqolkiiba 24. sidoo kaleeto aqalka sare oo 43 xubnood ka kooban tirada dumarka ee loo doortay inay xubno ka noqdaan waa 10, taasoo ayadana boqolkiiba 20 ka badan. xildhibaan Dr. Cabdilcasiis Cabdilaahi Yuusuf. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku dhaaranayaa iyo waxaad og tihiin oo ah in oo danta dalka ay ka mid yihiin ka shaqaynta dejinta siyaasadda amaba asixidda qawaaniinta shareecada inaad wadataan dhaar dastuuriya maadaama aad qabanaysaan xildhibaan cabdishakuur waxaan maanta ii tahay farxad aad iyo aad u weyn in la soo gaaray qabashada kalfadhigii koobaad ee baarlamaanka tobanaad ee Soomaaliya. xusuus weyn bay ii tahay. waxaan xusuustaa sanadkii 2012 oo aan baarlamaanka ku jiray. munaasabadu sidan way ka duwanaayeen. habka loo soo xulay xildhibaanada way ka duwanayd. tirada dadka soo doortay way ka duwanayd.
meelaha la isku doortayna way ka duwanayd waxay gelinaysaa rajo iyo dhiirigelin aad u weyn inaan halkaana ku arko dhalinyaro iyo dumar iyo odayaal iyo waxgarad qaybaha bulshada kala duwan oo laga soo doortay deegaanadoodii oo matalaya maanta dareemaya inay matalayaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan maanta aadaan u faraxsanahay waa maalintii ay dhaaran lahaayeen baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay maanta inaan shacabka aan matalo aan ku dhaarto sidaan wax ugu qaban lahay iyo wadankayga waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan wax badan aan ka bedeli doono insha Allah